قس صدق انا قس صدق قس أما كرر غادي ماشي بحال gabadha waa meedkeedii dugsiga ayuu ku dhex jiraa waa dhacdo maaragta argagax leh siyaad u jeedaan tarbak بيرش على شغال بيرش راس ما حب ويديسو جيرو كلا طيب قدوم يا gaariga ambulance-ka ay saaran اوكي بوتا قبل بسكوت عد هوري ولا وحوان الجوال السلام عليكم شنو ده ميستو او دي نيغا انت درسي اوكي عمر قاطع عليك دغ مش حاجه غونيت مع الله يدين كوالوس شيخ يا سمسي سحاول يعني أتعاون أصل جاب جامر حلو تجاب عمر كويس قدومي هلا كم قرأت؟ اوكي سمعت. السلام عليكم. ما ادري ايش هذا بس انتي ما انت 9 مشان فارق لي. 6 مال
masaajidada xaafadda iyo inta warbaahinta qaarkeed waa ku samaynaysay runtii gabadhii waxaan u arkaysaa digsi weyn sida digsi weyn ka saaran yahay joodariyaal iyo alaab ka korayso ciidii subaxdii waa hidaaye weli ma buu ku dhintay saxmada laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo boqoday oo meesha ku jirto waxyaabaha muujisada waxaa ka mid ah inay xirneed iyo lugaha iyo gacmaha iyo xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii ay imaaday guracneen gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku dhacaya loo malayna maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabihii ka maqnayd guriga cilla ahay laba wiil oo qaraabo leer ay joogtay oo qaangaara ah marka iskuulka ka imaaday in dib loo geystay isticmaal ka shaqsan yahay kadibna uu dil si lagu sameeyo xariga laakiin gurigeeda waa qolkoodii lagu xiriba marka waxaa la yaab leh faamilka qolkaan isticmaalayeen mase uu iska xirnaay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kursiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyey ma cid kalea ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska dhibka gaaray ma iyaga keligooda degan mise waa lama degan qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabe hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiil qaraabe abti uu yahay mise adeer uu yahay wiil saddex mala joogeen wiil ka mid ah iskuul jiraan mid kamid ah nala jooga xogaa dhigaha ka culus dhammaantood saldhigga geeddoonnaa meydka c i d la geynaa waxaa la baaraa gabadhaan qaabka umatay waxaa la ogaan doonaa ma gacan oo binaadina ku dhimatay ama markay dhimad kadib aa la gaaray waxaa la ogaan doonaa waxaasaa la ogaan doonaa falkan faamilkii odhan aan wadnay wixii oo qaangaara oo guri jooga baa wadnay waxaan rabnaa inaan geyno oo la baaro saliisa dhigaa la imaan doono marka dhammaantood waa la baara haddii la yidhaha markii la baaro waxaan ogaan doonaa wixii dhacay insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa cadaalad inay iska galaan sababtaa waxaan caqli ahayn guri hooyo iyo faamil ay joogaan oo gabdho ka waaweynaa joogeen sababta gabdhaha loo geystay in dhibkaan uu yahay dhib oo gudaha ka dhacay iyo dhib banaanka diima aabbaha safar jiray saa loo sheegay hadduu yimid gobolada jiray maamadu way shaqaysaa iyaduna way maqneed marka dhib noocaas ku dhaca waa kulley baaritaankan waxaa lagu jidaado marka السلام عليكم. شنو ده يميستو او دي نقاو انت درسين. عمر قاطع عليك دق مش حاجه غونيت مع الله يدين كوالوس شيخ يا سمسي سحاول يعني اسعدهم اصل جاب جامر حضرتك جاب عمر كويس قدومي هلا كم قرأي اوكي سمعك runtii maanta mucjisa meeshan ku aragnay saddexdii maalin ugu dambeysay waxaan baafinayay gabar yar ilmaha iskuulkiisa masaajidada xaafadda iyo inta warbaahinta qaarkeed waa ku samaynaysay runtii gabadhii waxaan u arkaysaa digsi weyn sida digsi weyn ka saaran yahay joodariyaal iyo alaab ka korayso ciidii subaxdii waa hidaaye weli ma buu ku dhintay saxmada laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo boqoday oo meesha ku jirto waxyaabaha muujisada waxaa ka mid ah inay xirneed iyo lugaha iyo gacmaha iyo xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii ay imaaday guracneen gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku
dhacay loo maleynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabihii ka maqnayd guriga cilla ahay laba wiil oo qaraabo leer ay joogtay oo qaangaara ah marka iskuulka ka imaaday in dib loo geystay isticmaal ka shaqsiin yahay kadibna uu dil soo sameeyay xariga laakiin gurigeeda waa qolkoodii lagu xiriba marka waxaa la yaab leh faamilka qolkaan isticmaalayeen masuu istixrinay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kufsiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyay ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska dhibka gaaran ayaga kaligooda degan mise waa lama degan qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabe hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiil qaraabe cabti wiil masadeer wiil wiil isticmaala joogeen wiil kamid ah iskuul jira mid kamid ah la jooga xogaa dhigaa ka cusub dhamaantood sadiga geedona meedka si ay la geena waxa la baara gabadhan abuurin waxa la ogaan doonaa ma gacan oo bilaadina ku martay ma markay madkii la haray falkan faamilkii oran wadnay wixii oo qaangaara oo guri jooga wadnay waxaan rabnaa inaan geyno oo la baaro سليس هذا ما عنده مركز ما تبغى البارع ولا يرى مركز البارع مع ودنا واحد عاي إن شاء الله تعالى عن رجينا عداردنا كمان ربط على عقل هين قولي هو يفهم الجوجان وقبلك هو وين الجوجان قبلنا نجوجست اللي كان ويا يدب ويا كذا عاي يدب برانك دين أبا سكر الجري سما شيء هذا يمد دورة الجري محمد هو يشري سعيد رحمه غنى مركز ابن عسكر على كل بارتاك كان راح يقول نجيب هذا ما قيس صوت بانا قيس صبر قيس أنا كرر غادي ماشي بحال gabadha waa meedkeedii dugsiga ayuu ku dhex jiraa waa dhacdo maaragta argagax leh dugsigaad ku joogtaan darabak gaariga ambulance-ka ay saaran tahay